maamulka gobolka Banaadir oo horay ugu digay laba cusbitaal oo kamid ah cusbitaalada magaalada Muqdisho oo lagu kala magacaabo Yardamili iyo Jasiira digniintaasi oo ahayd inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan u soo wareejiyaan maamulka cusbitaaladaasi maanta 14 bisha sagaalaad ayuu mar kale maamulka gobolka Banaadir shaaciyay magacaabista guddi cusub oo dardar gelinaya maareynta iyo la wareegista cisbitaalada Yardamili oo ku yaala degmada Xamar Jajaba iyo Hospital Jasiiro oo ku yaala degmada Warta Nabadda ee Kaswardhiigley afhayeenka gobolka Banaadir oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka fayday guddigaasi cusub oo ka kooban 8 xubnood waxaana hadaladiisi kamid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim ku socoto guddiga magacyadooda hoos ku xusan og maamulada isbitaalada Yardamili iyo Jasiira og taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir og taliska nabad sugidda gobolka Banaadir og gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir og gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ujeedo magacaabis guddiga maareynta la wareegista isbitaalada Yardamili iyo Jasiira ee gobolka Banaadir iyadoo la tixraacayo warqadda sumadeedu tahay daaha maaga aga wa eber 43256 eber 21 ee ka soo baxday xafiiska agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar taariikhda markay ahayd 1 bisha sagaalaad 2021 ujeedkeeduna ahaa soo wareejinta maamulka iyo gacan ku haynta isbitaalada Yardamili iyo Jasiira ee gobolka Banaadir taasoo ku socotay maamulada labada isbitaal looguna qabtay muddo 7 cisho ah oo ka soo bilaabatay taariikhda ay ka soo baxday warqadda sare ku xusan haddaba maamulka gobolka Banaadir waxa uu magacaabay guddiga hoos ku xusan si ay ugu shaqeeyaan maareynta iyo agaasinka la wareegista isbitaalada Yardamili iyo Jasiira ee gobolka Banaadir sidoo kale xaqiijinta sii wadista adeegyada caafimaad ee ka socda labadaas isbitaal magacyada guddiga maxamed maxamuud cadow agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir Saynab Maxamuud Warsame gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Macaawiye Axmed Muudey gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Maxamed Axmed Cantooba agaasimaha guud ee waaxda arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdulqaadir Muxudiin Axmed Dalxa agaasimaha qorsheynta Cabdullaahi Muuse Axmed Caraaya agaasimaha guud ee howlaha guud Muqtaar Maxamed Axmed Dhagacade agaasimaha xiriirka degmooyinka Saalax Xasan Cumar afhayeenka maamulka gobolka Banaadir haddaba guddiga sare ku xusan waxaa aad loogu adkeenayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u guda galaan howlahooda shaqo ee ku xusan wareegtadaani maamulka labada isbitaal waxaa la farayaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddiga la magacaabay si ay u fuliyaan waajibaadka loo xil saaray si habsami leh fiiro gaar ah inta lagu guda jiro waqtiga la wareegista labada isbitaal waxaa la farayaa maamulada isbitaalka sare ku xusan in aysan wax agab ah ka saari karin xarumahaasi waxaana si gaar ah loo farayaa maamulada degmooyinka Warta Nabadda iyo Xamar Jajab in ay korjoogteeyaan hubiyaanna in labada isbitaal ay hirgeliyeen amarkaani ku aadan ilaalinta hantida dadweynaha ee taala labada isbitaal ma sanadiin shaqo guddigaas 8 xubnood ka kooban ayaa laga rabaa inay isha ku hayaan labadaasi cusbitaal waxaana si gaar ah carabka loogu adkeeyay inay la socdaan waxyaabaha ka baxaya cusbitaaladaasi Yuusuf Saxardiid Yuusuf VOSTV Muqdisho